I am iyo am I maxay ku kala duwan yihiin muuqaalkeen maanta waxaan ka hadli doonaa I am ama I am isku mid weeyaan iyo am I waxay ku kala duwan yihiin so I am iyo am I maxay ku kala duwan yihiin I am waxaa la isticmaalaa marka aad ka hadlaysid wax adiga kugu saabsan tusaale ahaan I am learning English waxaan baranayaa Ingiriisi I am learning English waxaan baranayaa Ingiriisi I am happy waan faraxsanahay I am happy waan faraxsanahay so halkan waxaad ka sheekeynaysaa wax adiga kugu saabsan okay waxaad isticmaalaysaa I am okay I am happy waxaad sheegaysaa inaad faraxsan tahay I am learning English waxaad sheegaysaa inaad Ingiriisi baranaysid am I aydan maxay tahay marka am I waxaa la isticmaalaa marka aad su'aal weydiinaysid isla wax adiga kugu saabsan okay marka wax adiga kugu saabsan aad su'aal ka weydiinaysid tusaale ahaan am I late maan daahay anigu am I late anigu maan daahay maan soo dahay am I right maan saxanahay am I right maan saxanahay anigu waxaan rajeynayaa inaad fahanteen su'aal degdeg ah marka halkaa banaan waxaa gelisaa I am ama am I am learning English mise am I learning English jawaabta waxaan ugu reebtaa qaybta commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.